dhammaan waxaa idinka codsanaya fariintan qof kastoo arka walaalaha ka mida sheekha fariintiisa qof kasta oo arka inuu walaalaha kala gaadhsiiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar fara badan arrinkaa idinka siiyo. sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun waa ka hadlay dhibka hadda wadankii ka taagan ee ah in ummadeennii dhammaan ay qabiilada isku laynayaan. sheekhu waajibkii saarnaa waa gutay. annaga waajibkana saaran ka bulsho ahaan waxa weeye in fariinta sheekha qof kastoo arkaa uu gaadhsiiyo walaalihiisa ku xidhan. sheekhu fariintan 3 qoloba waa la hadlay. sheekh mustafe xaaji ismaaciil haaruun ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr fara badan ha siiye 3 qoloba fariintan waa kula hadlay. qolooyinka sidan isku laynaya ee torobtorobta iskugu aasaya ee isku marinaya qabiil daraadii sheekhu waa la hadlay, waajibkii ka saaranna waa gutay. sidoo kale sheekhu waa la hadlay dadka dhalinyaradan qoryaha iskugu dhiibaya ee dhaqaalaha u diraya ee yacni maalgelinaya ee isku diraya dhalinyaradan ee dhaqanka iyo cid walbaba leh. sheekhu waa la hadlay, fariintiisiina waa u diray. sheekhu waxaa kale uu la hadlay qof kasta oo ku faraxsan dadka walaalaheena dhalinyarta qabiilka isku laynaysa. qof kasta oo ku faraxsan isaguna sheekhu waa la hadlay, iyagana waa la hadlay sheekhu. waxaa kaloo sheekhu uu la hadlay siyaasiyiinta dhalinyarada yacni ku danaysanaysa ee xaabada ka dhiganaysa, iyagana waa la hadlay. halkan mala waxaa la rabaa in Soomaali kelmad loo sheego meel ay joogtaba. nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam 4 maalmood gudahood buu 3 jeer khudbadeeyey. 4 maalmood ayuu 3 jeer khudbadeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. carafa iyadoo la jooguu khudbadeeyey, yowmu naxar buu khudbadeeyey, alyowm athaani min ayaami tashriiq buu khudbadeeyey. waa 4 maalmood iyo 3 khudbadood. waxay kutubulxadiid iyo culammadu soo arooriyaan 3daa khudbadood inta badan inay isku wax sheegayeen. intaabana muslim wuxuu uga digayo u lahaa, waxaan idinka digayaa dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinna sharaftiinna inaa wax yeeshaan. intaas waa idinka xaaraan. markaasuu nebigu wuxuu ku celceliyey calayhi salaatu wasalaam, falaa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd. markii la yidhi dimaaga iyo amwaalka iyo acraaduba xaaraan bay idinka yihin sida maalmahan xurmada leh iyo beledkan xurmada leh xaaraanta u yahy, ayuu nebigu wuxuu yidhi aniga gadaashay gaalaha u noqonina badhba badhka kale madaxa ka jaro. soomaali waxaan weydiinaynaa markaa, ma nebi maxamed baa degaysan mise odayga kule dagaalan ama siyaasi ha noqdo ama oday qabiil ha noqdee, ma nebi maxamed baad maqli calayhi salaatu wasalaam mise kaa intaad maqashaabaad aakhiro hor iman doonta adigoo kaa daba socda? isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa uu ku tilmaamayo ahlu cirka dadka degan iyo dhulka cidda degan hadday isugu tagaan qof muslima dilistii la akabbahum allahu fi nnaar, ilaahay dhammaantood naar buu ku gurayaa buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. wuxuu kaloo nebigu yidhi kullu dembin casa allahu an yakfirah, dembi walba in ilaahay dhaafaa baa la arkaa, ilaa man maata mushrikan, mid gaalnimo ku dhintay, aw mu'minun qatala mu'minan mutacamida. labadaa xadiidka nebigu wuxuu ka soo reebayaa kuwa dembigooda la dhaafaya inay ka tirsan yihiin. bale wuxuu kaloo nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka qof mu'mina dila oo fakhtabata biqatlih oo ku farxa dilkiisa, waxaan yuutuubaradu ay shubayaan iyo dadku waxaanay ku sheeg iyo fadhi ku dararku reer hebel baanu leynay intan baa ka dhintay intan. qofka qof mu'mina intuu dilo ku farxa dilkiisa laa yaqbalu allahu minhu cadlan walaa sarfa, sunniya faraltoona alla kama aqbala baa la yidhi. soomaali ma waxay rabtaa inaan ilaahay sunniya faraltoona ka aqbalin? ma waxay rabtaa inay ilaahay la collowdo? ma intaad inaan kula mida raacdo warkiisa baad ilaahay la colloobi doontaa subxaanahu wa tacaala. waxau nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aba allahu an yajcala liqaatili lmu'mini tawba
waxaan sheegay oo dhamma waa xaadiis xasan ama saxiixa. ayuha alaxiba, haddaynu rabno dhibtani inay xallilanto, soomaali intay dowlad sheegato macataa etoobiya ka tirsan ku dar, kililka la ydhaha isku wada dar, inta soomaaliya xukunto dhiig baa ka socda. inta soomaaliya xukuntana dhiigga ka socdaa cid kale maaha, waa iyagaa isdilaya. nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, haddii aanay dadka muslimiinta iyo ilaahay kitaabkiisa isku xukumin, jacala allahu ba'sahum baynahum. ilaahay baa dhibtooda iyaga ka dhiga dhexdooda. haddaynu rabno inaynu badbaadno, waa inaynu idhahnaa war waxaynu isku hayno ilaahay kitaabkiisa aan u bandhigno. waxaynu isku hayno, bini aadamku wuu isqabtaa, dhib maaha, aadamuhu waa isqabtaa, laakiin soomaalidu waa dadka xalkoodu dhibtooda ka dhib badan yahay. hal qofaa la dilayaa, maxaa xal aynu uga dhignaa? 3 ka soo dila. war qof bay joogtay, qof aan ka wada hadallo, maxaa laga yeelaya? qofkani dhimay, tii allaaba timoo la dil, maxaa xal ah? waxaa xala in 5 reer hebela loo dilo. kuwa kalena maxay xal hayaan? 5 bay naga dileen inay 10 loo dilo, ilaa iyo intaa naarta ku wada gurmaysaan, ila meel kale kuma socotaane. reeruhu waxay rabaan inay naarta buuxiyaan, qolana qolada kale inaanay ka boos badanin. waxaan ku soo koobayaa, intiina halkan fadhida ilaahay barya in dadkaa ilaahay kala joojiyo. intiina halkan fadhida ha ka qayb qaadanina. inta warkan meelun ka maqlaysana waxaan leeyahay, bal waxaad isku daydaa, ma ilaahay baa kula weyn mise bini aadamkaa kula weyn? ma ilaahay warkuu ku yidhi baa kula weyn mise aadanuhu warkuu sheegayo wuxuu doonabaa kuu sheego ayaa kula weyn? aakhire maxaad ilaahay la hortegi? dagaal baad ku sii ordaysaa, waad geeriyooni. sow naar maaha, ilaahayow igub naar baan doonayaa, waxaad la ordaysaa maaha. kuwa madaxdaana waxaan leeyahay, war haddaad magac iyo maamuus doonaysaan, xataa dunawiya, aakhiraba haddaydan rabin, ee magac iyo maamuus duniyeed doonaysaan, nebigu calayhi salaatu wasalaam inanku awowga ahaa intuu eegay buu wuxuu yidhi, inankaygani waa sayid, waa madax. waayo 2 fi oo waaweyn oo muslimiina ilaahay subxaana wa tacaala ku kala qaboojinaya. war haddaad magac iyo maamuus xataa doonaysid, muslimaad disho ku heli mayside, dadka dhex galoo kala qabta. waa kuwa ugaasyada ah, waa kuwa salaatiinta, waa kuwa siyaasiyiinta, waa inta culammadee ka agdhodhow meelaha laysku dilayo. war ilaahay ka baqo oo dadka kala celiya, oo waxaa ku kala celisaan ilaahay kitaabkiisa wuxuu sheegayo. ilaahay kitaabkiisa wuxuu sheegaya ku kala celiya. sala allahu calaa muxamed.